jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London ee wadankaasi Britain waxa ay qabteen kulan ay ugu barordiiqayaan Allah u naxariiste Xasan Maxamed Nuur shaati guduud oo isagu dhawaan ku geeriyooday wadankaasi Jarmalka iyagoo guud ahaan baa uga tacsiyay ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii qaraabadii uu ka baxay una rajeeyay in Ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. walaalkana ama adeerkana ama awkana beeroy Xasan Maxamed Nuur shaati guduud Allah yarhamu وجعل الجنة مثواه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلهي سبحانه وتعالى قالنتس إلهي كسي قالنت مدكت إلهي كسي كتب شيء قبر شيء إلهي نوري قبر شيء إلهي واسع إهلك يسك جوري ذي إقراب ذي نصبر إيمان إلهي سبحانه وتعالى كسي eedeedan mahadsantiin dadka walaalyogan oo ku qayb galeen tacsidan oo keenis kooni oo no barodiiqdan suubiyo in walaalkana Xasan Maxamed Nuur shaar guduud oo hay nan Soomaaliya dhatiye sumcadka lahaay iyo qaasatan dhulku soo jeeda gobolada koonfurta Soomaaliya lixda gobol nan eed ummato ku nool dhatiyo qadrinka lahaay wuxuu halkan ugu dambeeyay markuu London yimaado halkan ugu dambeeyay uu soo booqin jiray dugsigan madrasadan u jeedid hoolkan uu imaan jiray Allah u naxariistay maanta waa waysanahay inuu soo booqo Ilaahay jannadii waraabiyo noola kasta inuu dhadhaminayo geerida inuu dhadhaminayo saacada lama sheegin maalinta lama sheegin taariikhda lama sheegin ruuxii waagu u bariyo inuu casarka gaarayo lama hubo ruuxii casarsada inuu cishaha gaarayo lama hubo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. ilaahay kitaabkiisa gacanta midig ha ka siiyo jannadii Allah ha geeyo annagana ilaahay gadaashiisa nama fidnayo. intaa waxaan ku dari lahaa in loo sameeyo wax la yiraahdo foundation gaas oo noqon kara sadaqa jaariya oo asaga anfacaysa asoo hadda meedo godka ku jira marka anfacilahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa saa hadda xafladan u qaban qaabinay inaan taasna qaban qaabo weyn ooga sameeyno hanala gasho dawladda Soomaaliyeed hanala gasho maamulka gobolka ka jira hanala gasho qurba joogteena insha Allah taasna waxaan fadhi kale ka yeelan doonaa marka Ilaahay sabar iimaan annagana Allah naga siiyo asagana godkiisa Allah u nuuriyo qabrigiisa mid if Allah uga dhigo kitaabkiisa gacanta midigta Allah ka siiyo. Xasan Maxamed Nuur shaati guduud inuu ahaa nin afgaaban asluub badan akhyaar ah oo ku caan baxay hadal yar iyo hawl badan. Ilaahay naxariiso jannatul firdaws ka ducaayana dadku isku dhimadeen Ilaahay sabar iyo iimaan ka siiya. wuxuu ka dhintay Soomaaliya oo dhan waan loo qabnaa tacsida markan oo dawladda Soomaaliya u sameysay mid loo sameeyay regionalka iyo halkan yaani shacabweynihii halkan ku dhaqanaa UK in ay ka soo qayb galaan barordiiqdan yaani ay sameeyaan waa runtii wax aad iyo aad u wanaagsan waxaana si gaar uga mahadcelinayaa dadkii uu istaagay wax kasta howl kasta kuleyto dad u qabta waxaan leeyahay anigoo ka wakiil bilaanta inta fadhiso intii kale inaan Ilaahay ag naxariiso walaalkayna ama adeerkayna ama aawkayna shaati guduud intiis wadankan soo qabad intiis soo halgamin Ilaahay ajri xasanaad badan naas ka siiyo waxaan lana Ilaahay ag naxariiso ummadda dhan Soomaalina Ilaahay naxariis janna Allah ka waraabiyo. inta wanaaga uu sameeyay waxaan rajaynayaa dadka ka dambeeya inay wanaagiisii hore loo soo wado wixii qalad uu galayna dhammaan inta halkan joogto iyo inta naga maqanbo inaanu Ilaahay ugu barino inaanu saamaxno inaanu cafino marka waxaan leenahay samir imaan Allah naga ma ka siiyo eheladii uu ka dhintayna samir imaan Allah ka siiyo wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed wayba inta tacsi wiin yaani ummadda Soomaaliyeed ku diray marxuumkii noo geeriyoodii ummadda unu dhan Cornel Xasan Maxamed Nuur shaati guduud wayba lanaaba Ilaahay jannatul firdaws gili Ilaahay qabrishay waasicun ku weeri Ilaahay dambishay dhaafa